gudoomiyaha jaaliyada Somali Community Board ee dalka Koonfur Afrika ayaa lacag tacsi ah waxa uu gaarsiiyay qoys South African ah oo toddobaadkii hore ganacsada Soomaaliya toogasho ku dilay wiil ay dhaleen oo 14 jir ah isla markaana ay ka dhalatay rabshado lagu boobay in ka badan 200 oo dukaamo ganacsi ah oo lahaayeen dadka ajaanibta ee ku nool deegaanka Soweto ee duleedka magaalada Johannesburg. wasiirada amniga ee gobolka Gauteng oo la socotay madaxda jaaliyada xilliga lacagta la gudoonsiinayay qoyska South Africaanka isla markaana kormeer ku tagtay deegaanada lagu dhibaatay dadka ajaanibta ayaa waxay sheegtay in isfahan weyn laga gaari doono xal u helida arintan isla markaana waxay codsatay in ganacsatada aysan dib u furin goobahooda ganacsiga ilaa toddobaadka dambe laga aaso wiilka la toogtay. The Somalis Community Board will be able to work together with the family in making sure that the boy gets a decent funeral. We were fortunate that the family have welcomed the intervention that we have made as per the discussion that we had with them last week, Wednesday. We have indicated how we will assist, and we have all agreed that that is how they've made their plea to us to intervene. Amir Sheikh gudoomiyaha jaaliyada Somali Community Board oo goobta kula hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in arintan looga gol lahaa xal u helida dhibaatada ka dhacday deegaanka Soweto oo lagu boobay in ka badan 200 oo dukaamo ay lahaayeen dadka ajaanibta ay ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika gaar ahaan gobolka Gauteng. maanta waxaan joognaa guriga Sikiwe Makori markii dhalinyarada oo dhibka uu ka bilowday ee xaafadda Snake Park qoyskina wayna soo dhaweeyeen lacag waxaan u geynay loogu talagalay maaragtay xabaasha wayna soo dhaweeyeen wayna qaateen. waxaan u sheegaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed sida wasiirka amniga gobolka ay sheegtay in aysan qaadanin tilaabo ay dib ugu noqonayaan ayagoon ka warqabin dawladda. waa la celinayaa laakiin ha sugaan inta sabtida laga xabaalayo Sikiwe Makori. xabaasha haddii ay dhamaatane waxaa dhici doona maalinta Isniinta ah kulan weyn oo lagu yeeray kansalaha dhammaan Soweto. toddobaadkii hore ayay ahayd markii deegaanka Soweto shacab careysan ee cagta mariyeen goobaha ganacsiga dadka ajaanibta waxaana xaaladda iminka ay tahay mid degan walow shacabka South Africaanka ay arintan ku kala qaybsameen haddana waxaa soo baxaya baaqiyo ka imaanaya dadka deegaanka oo ku aadan ganacsatada ajaanibta ah inay dib ugu soo laabtaan deegaankaasi isla markaana ay dib u howlgeliyaan goobihii ganacsiga laga boobay. Cabdillaahi Maxamuud Amiin, Cabdillaahi Qorshe, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.